aynu ka hadalno ama aynu iska weydiinno hannaanka dimuqraadiyadeed ee Somaliland waa dal ku faana nabad iyo xasillo taasoo u sahashay inay u qabsoomaan doorashooyin xor iyo xalaal ah. dad badan ayaa ku dooda in Somaliland ay tahay waddan ka soo ifbaxay dalalka mandaqadda Geeska Afrika. laakiin weli su'aal ayaa taagan. dee waddo fiican oo adduunka marka la joogo la ammaano way dimuqraadiyad. yacni waa nidaamka xukunka dadku isugu wareejiyo isu doorto. dimuqraadiyaddu ma tahay mid si dhab ah u shaqaysa oo loo dhan yahay mise waa nidaam magaca dusha uun ka ah dimuqraadi gudahana ka ah hab qabyaalad ku dhisan oo aan si siman u wada gaadhin dhammaan bulshada. Somaliland dimuqraadiyad goy ka jirta kamana jirto. marka dhinac laga eego way ka jirtaado qaabka isdoorashada wax loo dooranayo ee magaleesha deegaanka noqdo ama madaxweynaha noqoto ama ha noqoto baarlamaan ha noqoto qaab dimuqraadiyad dhinac ka shabahda ayaa loo maraa. marka dhinaca kale eegana waa qaab ku salaysan qabyaalad iyo khiyaano. si aan jawaab ugu helno waxaanu su'aalo weydiinay dadyo kala duwan oo ku nool gobollada iyo degmooyinka Somaliland. jawaabahooduna waxa ay muujinayaan sawir ka qoto dheer kan hadda inoo muuqanaya. caqabado waaweyn baa dowladnimadeena ku gadaaman oo qabiilku ugu weyn waxa iskaga keen dhafmay oo iska keen dhexgalay dowladnimadii iyo qabiilkii labadaasaa isku dhex daawan innaga oo isku qasan oo aan inoo kala gudnayn. qabiilkiina waa waxaynu doonaynaa inaan ka tagno dowladnimo u gudubno oo dowladnimo maynaan gaadhin qabiilkii kabaynaan tegin. dowladnimadii iyo doorashooyinkii iyo maxaan ku dhahdaa naakan xisbiyada badan iyo inaynu guurno waafaqi oo isna maynaan gaadhin oo qabiilkii kama tegin. qabiilkiina maynaan joogin oo qabiilkiina kumaynaan kaabtoobin oo kaaska maynaan dee laakiin isku dhex faris badan baa horta isugu keen dhex daawan. Somaliland hadda ku shaqaysaa dawaa isku dhafka qabiilka iyo casriga iyo diinta la isdhexgeliyey ama hybridka ilaa haddana si fiican buu shaqeeyaa moogti marka dhinacyo badan laga eego. marka contradiction ama iska horimaad wuu jiraa laakiin haddana wuu shaqeynayaa moogti. laakiin mashaakil kale ayaa ka dhashay oo markii crisis markii balaamaan oo kale nidaamka mushkiladiisa soo baxa. innaga haddaad eegtid haddaynu teena u soo noqonno ilaa iyo intii aynu dalka dib ugu soo noqonnay oo aynu dalkeenna maamulay qaabab kala duwan baynu especially laba qaab waxa weeye modern state building modern state dhisideeda iyo sidee laysu waafajiyaa traditionkii ahaa geedka hoostiisa garta iyo nabadda. لأنه labadii system baa la rabaa in la iswaafajiyo. wax badan baynu ku guuleysanay hadday tahay maanta xaaladdu haddii intaa aad sheegtay ay hadhaynayso processkii dimuqraadiyadda iyo cadaaladdoonka ma waari kartaa. nidaamka dimuqraadiyadeed haddii aan hoos soo dhaadhacno waxaad arkaysaa dhammaan inaanu jirin wax dabadgal ah ama la xisaabtana oo hantida dawladdu ay ku lunto ama hantida dadweynuhu ay ku lumaan shaqaalaha dawladda meeshuu doonaba ha joogo wasaaraddu doonaba ha jooge. marka nidaamkeenna dimuqraadiyadeed ay hadhayso qabyaaladdu geedi socodka dimuqraadiyaddu waxa uu noqdaa mid hantaaqma oo aan hana qaadin. haddaba sidee baa looga bixi karaa dhibaatadaasi. daaima uu ninka wasiirka ama agaasimaha inuu ummadda u shaqeynayo laftiisu u fahmaan oo xafiiska isagu lahayn ee dadku leeyahay. wasiir ha noqdo ama xildhibaan ha noqdo ama agaasimo ha noqdo wax alla wuxuu doona noqdo isku duwe ha noqdo waxa weeye haddii si aqoontiisa qof walba aqoontiisa lagu doorto oo rag iyo dumar loo kala eegin oo lagu doorto qof walba aqoontiisa iyo sida uu wax garad u yahay oo wax u bartay oo heerka uu taagan yahay lagu doorto waxaan aaminsanahay waxba ma khaldameen. taasi waxa weeye marka u horeysa in la abuuro wacyi wadaniya
oo qabyaalada ka soo horjeeda kooxaysiga ka soo horjeeda in diinta si xun loo fasiro ka soo horjeeda wacyigaa hogaamiya ummadaha dunida dabeedna wacyigiibaa sidii loo hirgelin lahaa loo horumarin lahaa research iyo maxaan ku dhahdaa la institution laga dhigaa dhaqanka iyo nidaamkeenna qabiil waxay aalaaba mudnaanta siiyaan ragga marka loo eego haweenka imikadan baa ma roonaayoon intiinan idin soo hor fadhiisanay dee ilaa iyo intaynu soo abuurnayn baa haweenku dib bay ahaayeen imika dad macnaha dadkoogii soo dhexgelaya ayaaba soo noqonaynaa waxaan garaadaysanay tiyo aan inantaba waxbarasho lagu darin oo horta inanta u horeysa dhalata reerka loo reebaba talabaadta saddexaad anigu inantii saddexaad baan ahaa reerkayga aniga iskool lay qoray labadii hablooda kalena dherigaa kariyaan baa loo reebayay macnaha halkaasaan nolosha hooyada iyo aan ka soo bilaabanay baaba halkaa inantu inay dharka u maydho inanka inay dharka u kariso nidaamka dee qabaliga ay dhaqanku ay soo dooranayaan ee ragga ay aaminsan yihiin oo sidaa ah in inantu aanay dee ay dhaxdin tahay aanay dhalasho ahayn dadkii ay xog ururintu gaadhay waxa ay sheegeen in ay jiraan caqabado badan oo haweenka ka haysta ka qaybgalka siyaasadda xagga dowladnimo marka la eego kumaba hamiyeynaba inaan soo galno saaxadda sababtaanan ugu hamiyeyni waxay tahay dee waxaa la idhaahdaa halkuu geela kii hore halkuu marubuu ka dambana maraya dumarkii naga horreeyay aqoon-yahaniintiiba way iska fadhiyaan su-aashaas waxaan rabaa inaad maanta inoo sheegtaan maanta haddaan wax geysto ama cid wixii geysato cidda diyadayda qaadanaysaa waa caqalkaygii ma caqalkaygii wey isaga marka hore loo yeedhayaa intaan ninkaygii loo tegin reerkaygii loo tegin waa in caqalkaygii la raadiya waa markaan wax geysto adaa imanaya waad ka arriminaysaa markaad ka arrimiso hawshii adaa gelaya markaa cidda doonta si maxaa noo diiday markaa in reerkaas annagu reerkaas dhiigayga mala dhaqankaygu looya caruuro kalan u dhalay maxaa diiday reerkaygii aanu ka dhalanay inayna doortaan horta xisbiyadii oo dhegaysanaya odayaasha ama hablihii shuruud kaga dhigaya inay qabiilkoodu taageersan yihiin markay odayadii ka soo caratay ee xisbigii u soo caratay baa xisbiga haddana mar labaad wuxuu ku celinayaa inay qabiilkii ka soo qaadato ogolaasho taasina dee sharcigina maaha systemkan kuma jirto laakiin waxa weeye xisbigii haddana mar labaad qabyaaladii korinaya waa dimuqraadiyaddii iyo raggii dumarka midna aan aaminsanayn haweenku ma midaysna ama somaliland ha noqoto ama reer ahaanba xitaa haddaad noqoto habluhu isu yimaadaan waxaa laga yaabaa saxan kale inay midadiidan soo dibadda taasi ay sirsadayso dumarku way tartami karaan laakiin waa inay hanti ay haystaan dhaqaaluna waa ka labaadee dumarka soo celiya ta kale dee dumarku maxay ahaydaan raggii caawa oo kale way qayilayaan meel bay ku shirayaan adaaba lagu shiro lugaha lagu goynaya aduu reerkaagii baad jeeftaa warba kama haysid caqabadaha jira ma aha kuwa fudud waxa ay ka dhaxeeyaan dhaqan nidaam iyo aragti bulsho horta anagu hablaa ma haysano ila kuwa haddeer jooga haddaan ugaashana annaga inanka iyo inanta horta waa noo sameyn yihiin marka hore haddana dhibaato waa jirtaa oo dhibaato haysato waa ogan dhibaatadu sababtay u haysataa waxa weeye in inamadii oo dee ka dheereeya ay ka horeeyaan waa qodob oo ay gaari waayeen oo dadkiiba uga horeeya ila reerki waa in kooban oo dee socota reer kale u tegi maayaan sidoo kale waxa ay sheegeen xalalka lagu gaari karo ka qaybgalka haweenka ee siyaasadda aynu ogaano nidaamka aynu waxa weeyaan ku soo xulanayno sida aynu iyaga waxa weeyaan haddii badankeeda leeyahay kor ugu qaadayno wacyigooga iyo sida ay iyada oo aynaan ishayni naga ahayn aynu u dareemayno inuu inaga maqan yahay wax aad iyo waxa weeyaan garab aad u weyn inuu ka maqan yahay taladeenna kale waxa laga bixi karaa in dimuqraadiyadeena ay xisbiyadeena u hoggaansadaan haddii dimuqraadiyadda xisbiyadu u hoggaansadaan habluhuna waa la sharaxi karaa meeshana waxay imaan karta sinaan iyo cadaalad ay ragga iyo dumarka u dhexeeya oo ay dumarku si isku mid ay raggu isku soo sharaxi karaan u wada dagaalami karaan hablihii مثل إثيوبيا يمكن دينا عين وهايسا دق ما شن قف لقى شرحيا لبها بلود بالقدرية لبها بلود بالقدرية لبها بلود بالقدرة إيه إنك لما ترتمس إنك لما ترتمس لبها بلود وصابها حيا
saddexdii shantii qof ama xisbi mucaarad ah ama muxaafid ahaado waxay la tahay aniga halkaa in lagu koobo balse ay bahashu u soo yaro karto dimuqraadiyadda la sheegaya hablihii inay koota helaan sharcigu waa lafdhabarta dimuqraadiyadda waa waxa ka dhiga bulsho meel ku wada dhaqan inay aaminaan nidaamka markaasi jira xataa haddii ay ku kala aragti duwan yihiin aaraada afkaarta iyo arrimaha siyaasadda laakiin dimuqraadiyaddu kuma dhisanto oo qudhaata doorashooyin loo dareero iyo xukun lala kala wareego waxay ku tiirsan tahay helitaanka cadaalad iyo shuruuc dhammaystiran horta waddanka 3 sharci iyo 3 socda sharci waa sharcigii customary lawga ee bulshada oo dhaqanka sharcina waa sharciga halida circular lagu noocaas lagu magacaabo malnaa ka dowladnimada sharcina waa sharciga diinta oo sharciya lagu dawlad qalad fahansanayba sideedaba waxba saas isku dhex wadnaa oo wax weeyaan inta ugu badan waxa la yidhahdaa saddex qaybood bay isku dhex darnaayo dhinaca diinta islaamka aynu dabaqnaa maadaama inta islaam nahay dhinaca waxaana dimuqraadiyadda aynu dabaqaynaa dhinaca waxaan dabaqaynaa teenii traditionalka ahayd ee dhaqankeena horta inagu saddexdaas isku barbar wadnaa xog ururintani dadkii ay waraysatay ee ku noolaa gobollada iyo degmooyinka dalka Somaliland waxyaalaha la weydiiyey waxaa ka mid ahaa caqabadaha ka jira bahda cadaaladda waa sidee nidaamka cadaaladeed ee Somaliland adigan waxaanu ka dhignay sharciyadu inaynu iyaduna daba socoto marba halka loo baahan yahay qof waliba ku duwo sharciyada waxa lagu adkeynayaa marka hore in iyaduna hogaamiso marka dambana waxaan qabaa kab qoyo Soomaalidu maamaadeedu cajaayib arrintani waa kab qoyan ku qaba miyahay arrintani degdeg bay ahayd matalan kab qoyo ku qaba bay ahayd cadaalad bay u baahnaayeen biyay u baahnaayeen adeegyo u baahnaayeen shaqaaleyn bay u baahnaayeen in loo sinaado adeegyada dowladda loo baahan laakiin waxaa dhacaysa maanta qabiilka uu ka odayaal dhaqan badan ka odayaal badan yahay ka hadal badan yahay ka media isticmaal badan yahay ka tiro iyo maxaan ku raadayay koofiyada badan yahay inuu ka badsado hanaankii iyo adeegii dowladnimo ay ahayd in loo sinaado garsoorku ama cadaaladdu waxay leedahay ninka halkaa fadhiya haddaanu bishii wax ku filan aanu haysan oo aanu madax bannaanayn lama odhan karo qof baan waa madax bannaan yahayba aragtiyahaasi waxa ay muujinayaan sawir isku dhafan nidaam jira laakiin weli ay dul hoganayaan su'aalo badan xeerarka maanta jiraay dee waa kuwa aan ka cabanayno xeerarka maanta jiraay waa kuwa aan ka cabanayno waxay ilay qurux badan aniga inaan kuwa aan ka cabanayno maanta wixii inaga anfacnay inaan ka qaadano wixii aanay naga anfacayna inaan ka tagno xeerashii maxaan ku idhaahdaa dadkaa kale hagi lahaa cadaalad u samayn lahaa ee simi lahaa ee qof walba xuquuqdiisa ku heli lahaana in dadkii aqoonta u lahaa ee keeni lahaa in la helo qofka muwaadinka meesha uu uga baahdo hay-adaha dowladda iyadaan eeduwadin uu danihiisa u sheegin karayo oo geli karayo nidaamku siduu maanta u dhisan yahay uu iska bedeli lahaa marka ay cadaaladdu hoos u dhacdo waxa burburta kalsoonida ay bulshadu ku qabto nidaamka markaasi jira sidee baa loo hagaajin karaa cadaaladda kow waxa meesha u baahan horta in la tayo laga qabto waa sharcigana qof kasta isagaa ka sarreeya laakiin keenu kama sarreeyo in la helo in institutionada ku lugta leh waxaan in la dhiso marka dadku ay dareemaan in cadaaladi jirto waxa ay dhammaan u wada hoggaansamaan ama ay aaminaan nidaamka dadkani cadaalad bay u baahan yihiin soo maaha waxaan u baahannahay waa cadaaladii dadkii dhiqi lahaa kolkan hore eenu doorananaba waa inaanu soo saarno oon helno oon ogaano oon maxaa la yidhaahdaa dee aqoontoodii ku soo saarno marka ay timaado xilliga doorashadu muwaadinka codeeyaha ah go'aankiisa doorashadu waxa uu jaangooyaa mustaqbalkiisa iyo sidoo kale mustaqbalka bulshada daraasaddu waxa ay weydiisay dadka reer Somaliland
su-aal u dhignayd marka aad wax dooranayso ma waxaad u eegtaa go'aankaaga doorasho mid qabyaaladeed mise aragti baad wax ku qaadataan mise shaqabiil baa wax ku qaadataan markay taastaageenta waxa weeye horta xilli aynu aragti wax ku qaadana joognaan siyadayda waxa weeye numbarwana waxaa qabyaala taana waxaa kugu khasbaysan bulshadii oo environment iyo society aad ku dhex jirtaa khasbaya inaad qabyaalada hoggaansaneeto option maba lihiba anigoo suuqa iska jooga horta nin laga keenay dee ha anigoo halkaas hoteelka iska fadhiya ayaa laygu yidhi reer hebel oo dee yani macnaha reerkayagii war ninkaasaan u garanay ninkaasay nagu matelaya golihii deegaanka golihii baarlamaanka yes saasaa lagu odhanaya marka dee go-aan qaadashadaadu waa qofkii dee aad waa inaad u codaysuun horta wax kale ma jiraba baarlamaanka iyo deegaanka mar baan codeeyo markaana dad reer hab qabyaaladiisunu ayuu baan ku codeeyey nabadaba markaan anigu doonayo inaan doorto shakhsi ama aynu sidaynu caamka ku nahay run ahaan waxaynu saaraa ama aynu wax ku doorno qabyaalad iyo qadiyad waxaynu ku doorannaa qof waliba qofku markaa uu danaynayo isagoo qabyaalad ama qabiil ku soconayo wax ku doortaa oo ku taargadgareeya ma taa maanta mise intii ka horreysay taa maanta qabyaalad baan ku doorta hadday deegaan tahay hadday baarlamaan tahay hadday madaxweyne tahay intii ka horreysay dimuqraadiyaed baan wax ku doorta sida aynu la wada soconno badi bulshadeennu xilliga ay wax dooranayso waxa ay go'aankooda ku saleeyaan nidaamka beelaysan haddase waxa ay u muuqataa in aragtidaasi ay isa soo beddelayso laakiin waxay qorshaysan doorashada soo socota inaan ciddii deegaanka wax taraysa ee dan qaran iyo dan guud wada aan siyaasaddiisa ka dhex arko inaan codayaan hal waydo dambe aan la dooran hadday noqoto mid madaxweyne hadday noqoto mid baarlamaan iyo mid deegaanba marka aan wax dooranayo haddii ilaahay yidhaahdo mar dambe madaxweyne la dooranayo inaanan qabiil ku raacin waayo aanu marnaba qabiil kuma raacaynin dimuqraadiyaddu waa geedi socod iyo hannaan lagu helo isbeddel dhab ah kaas oo ku yimaada doorashooyin isla xisaabtan iyo nidaam hufan somalilan weli waxay haysataa fursad ay ku hagaajiso hannaankeeda dimuqraadiga ah laakiin su-aashu weli waa ay taagan tahay dimuqraadiyaddu ma noqon doontaa mid si dhab ah u shaqaysa oo la iska wada dhex arko mise waxa ay sii ahaan doontaa mid aan dhammaystirnayn